Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii falanqaynta cayaaraha toddobaadka ee horyaalka Barclays Premier League. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka, ha ilmaami inaad saarto subscribe, kambaleelkana aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinada faallooyinka halkan aan soo gelino, lana wadaag saaxiibada si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo adigoo kaleetood ah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Hagaag toddobaadkan waxa uu ahay kooxaha qaarkood toddobaad mugti ah kadib markii afka ciidda loo daray. Inta uu barnaamijkan socdo waxaan ku eegi doonaa sida loo ciyaaray iyo kooxaha loo garan ogyahay top 6 waxa ay kala kulmeen iyo xaqiiqooyin kale. Aynu ku bilownay kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray bilowgii toddobaadka. Waxay kala ahaayeen Man United vs Brighton. Man United ayaa waqtigii dhimashada ciyaarta 3 gool iyo 2 gool ku adkaatay Chelsea vs West Bromwich Albion. Chelsea ayaa waqtigii hore ciyaarta laga dhaliyay 3 gool, balse soo laabasho weyn ay sameysay ay ku barbareysay kana dhigtay ciyaarta 3-3. Tottenham vs Newcastle United. Tottenham oo ciyaarta waqtigii hore gool la timid ayaa laga barbareeyay waqtigii dhimashada ciyaarta, sidaasna ay ku heshiiyeen Newcastle iyo Tottenham barbaro 1-1 ah. Manchester City vs Leicester City. Manchester City oo gool ka hormartay ayaa loogu jawaab celiyay 5 gool iyo 2 gool. Leicester City ayaana ku awood sheegatay ciyaartii ishii lagu wadahay ee Liverpool FC vs Arsenal. Arsenal oo walaayada la saartay durbawana u bilaabay lambarkeeda 9aad Lacazette gool ayaa loogu jawaab celiyay 3 gool iyo gool ciyaar ku soo idlaatay. Waxaa idinla socodsiiyay